ما أنت إذا ودي كريواية إذا هجامي كريواية وإذا كتجي لكن قول لي كورورين ماي جمهورية الواحد مسمى زادت هيئات العالمية التي تختص بمنطقين مرضى محاي هيدي عسكر الدولة دي كذبت شوغان يجوا غير وقوية ما هي ساقة ما هي قد بورسية ما هي يجوا غير وقوية غير سومالي لاند أو ذا سكيسنو أو ذا تسنو أو ذا فرسنو أو ذا حاجات تسنو أو بتاع في نسي أو سكول في نسي أو بتاني حاجات سنينا أو يدينك هل فينا النوم والبنحل إن جامعة دي لبعض كهد قشاء جمهورية الصومالي الآن إن ما تفروا الباب كفر الله ونحرسته مرحوم محمد حاج إبراهيم عقال مدحوينيه هوري سومالي لان تirahaan واسيسا مدحوينيه لبعض سومر الدلكا waxa uu ku dhashay degmadooda weyn ee gobolka Daadmareer sanadkii 1929 wuxuu yaraantiisii ku soo barbaaray magaalooyinka Berbera Sheekh iyo Burco halkaas oo ku dhameystay barashada Quraanka iyo waxbarashada asaasiga ah wuxuu u soo wareegay dugsiga boardingka ee Sheekh isagoo waxbarashada sarena u tagay magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska sanadkii 1956 ayuu dalka dib ugu soo laabtay Allah uu naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waqtigaas oo loo doortay xogiyihii guud ee xisbiga SNL ee uu halgamayay xornimo doonka Soomaaliland iyadoo ay dalka ka dhacaysay dabayshii xornimo doonku muddo 4 sano kadib oo ku beegnayd 26 Juun sanadkii 1960 waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii gacantooda ku saxeexay Soomaaliland xornimadooda ka qaadato maxkamada Ingiriiska muddo 5 cisho kadib Soomaaliland waxay la midowday koonfurta Soomaaliya kadib markii 1 Juulaay ay xornimadeeda ka qaadatay maxkamada Talyaaniga waqtigaas oo halkaas ay ka dhalatay dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliya Allah uu naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu dawladdaasi ka noqday wasiirkii gaashaandhigga ugu horeeyay Soomaaliya waxa kale oo marxuum Cigaal noqday wasiirkii waxbarashada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadkii 1963 ilaa 1964 Allah uu naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa uu muddo kadib iska casilay golihii wasiirada isagoo hogaamiye ka noqday xisbigii mucaaradka ahaa ee la odhan jiray SNC isagoo markii dambena ku biiray xisbiga SYL 10kii bishii Juulaay ee sanadkii 1967 waxaa loo doortay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ra'iisul wasaarihii Soomaaliya iyadoo madaxweynena loo doortay Cabdirashiid Cali Sharmaake 22 Oktoobar 1969 waxa Soomaaliya ka dhacay afgambigii uu sameeyay Maxamed Siyaad Barre waqtigaas oo xabsiga loo taxaabay isagoo xabsiga ku jiray ilaa 1981 bishii February marka laga reebo muddo sanad ka yareyd oo ahayd 1975 ilaa 1976 oo mar loo magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Hindiya iyadoo mar kalena xabsiga lagu celiyay 18 May 1991 Soomaaliland waxay dib ula soo noqotay madaxbannaanideedii dawladda Soomaaliya kadib dagaal qaraar oo jabhadii SNM la galeen dawladdii Maxamed Siyaad Barre go'aankaasi la soo noqoshada oo laga dhawaaqay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer taasa ina huran ben Israel dhacday bedina dhici doonta saad dambena dhici doonta Israaciil dawaabo soo goosgeennuna ma ahayn barasho aynu soo baranay inaynu shalay 60kii qalad samayno shalayna waxaynu ku tagnay jibo maantana waxaynu ku nimi jibo meelina geynaysaa ma jirto jibo taa weeye dhaxalkii jibo iyo fikrad darro iyo iska orod iyo tala la'aani waa taas weeye maxay ahayd dhaxalkii taa weeye dhaxalkii kuwaasi maanta idinkama baahna waa idinku celcelinayaa idinkama baahna inaa waanta idinkama baahna inaa u oydaan meel wanaagsan ay kaga raysteen meeshii ay joogeen bay joogaan maanta rag baa u raran waxay ku raraayeen
وانت اللي قرنوا غيريتي ذنبي أحي دبا هاي وحي قلينا هاي مدور بنت اللي قرنوا غيبها فكوها ريحي من مودا معها يدي حمل قيله وكساره لا ما تعيوها أول كي كريوها زمان كي لو تناي ما بوقي لكن ركبة كوها ريحي ما تكون مرجيح ودام كل شيء يوحي للوضيع ايه مداول الكفر بيصير واحد للوضيع إذا كان بهرمان إذا كان وبها فاعتبروا إلهي فاعتبروا يا أولو الأبصار وأروحي وحقرنا اليوم أفرقاد وحال أركته أفرقوا قاضبوا أفرقاد الشمانة إنك أوبها هنينكو أفرقاد وإنه حقيقة ولا يدمر دبا يودعي ساحتين وسينو ما أنت أصعوا تفكر أنت قيمة أنت diinteenni iyo qiimaheenni iyo qadarkeenni oo dhammi uu ku xidhan yahay mijintaada intaynu la caqlinahay kulligeen reer soomaaliya loo meel kastoo joogo mijintaada inta caqligeennu ku xidhan yahay ee wax walba ina gelinaysa deelba ina gelisa kaas kuwaasi waxay u dhintay wuxuu laayey kama foga inay mijintaada u dhintay mijintaada inay u dhintay kama foga waxaynu taasi aanay dib ugu dhici karin oo ay maanta mucjisada iyo ictibaarka actabiru ilaahayna leeyahay uu inagu tusay daad u soo saaray waxa weeye haddaynu ku fakiro oo aynu baranno oo aynu ka dheehno oo aynu qalbigeena aynu dib u fadhiisano fakir qur-aanka ilaahay markuu bini aadmiga la hadlayo alaa tatafakkaruu alaa tactabiruu alla waa miyaydaan fakiraynin miyaydaan waxay hore xusuusanayn miyaydaan ictibaar ku qaadanayn waxaa aragtaan miyaydaan ka faa'iidaysanayn intaasaa qur-aanka aayad waliba ku soo aroortay ilaa aynu fakiran oo nabigu ninka mu'minka ahi laba jeer dhagax kuma wada tuturo waayo kii hore waayo caqligana cilmiga iyo diinta iyo iimaanku caqliganay ka yimaadaan caqligay beeraan nin caqli ha dhagax laba jeer kuma wada marka mu'minku laba jeer dhagax kuma wada turturooda markuu nabigu leeyahay wuxuu leeyahay mu'minku ka fakiro bal hal isku weydiiyo waa maxay waxaynu shalay ka dhiidin ay ragaasi ku dhinteen waxaynu maanta doonaynaa maxay tahay haddaynu soo dhacinay dawladii xaggay maxaynu u diranay halkee waddanee baynu u fallay halkaa mara ilaa aan waddadaa fashaan oo halkaa aynu marro ictibaar baa laynagu soo saaray inaynu u aara lama soo saaray inaynu nagu isku tuhunno isku nacnona lama soo saaray nin walba afwafaqash waa ku jira nin a ka maqnaa feer ka maqnaa beel ka maqnaa cid ka maqnayd mid yar mid dheer mid sare mid badan mid yar hore aan cidi kaga jirin mid shir muddo 4 bilooda ka socday magaalada Boorama kadib waxaa 5tii bishii May ee sanadkii 1993 la isugu yimid dugsiga Sheekh Cali Jawhar ee magaalada Boorama halkaas oo ay ka soo xaadireen musharixiin ergooyinka beelaha Soomaaliland goobjoogayaal shirgudoon iyo xubno kale tiro badan waxaana halkaasi ka soo baxay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal loo doorto madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii uu ergada shirka ka helay 99 cod waxa isagana madaxweyne ku xigeen loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax kadib markii uu helay 102 cod waqtigaasi oo aan lahayn askar ilaalisa dakhli dawladeed iyo dukumeentiyo xafiisyo lagu wareejiyay halkaas oo ay ka bilaabeen aasaaska taabagelinta hanaanka dimuqraadiyadeed iyo taabagelinta dawladnimo buuxda waxaana Allah u naxariistay marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal uu ka soo aanbaxay magaalada Boorama isagoo u hoyday magaalada Gabiley waxaana si balaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa intaynu waxaan danteennii ahayn daba joogno beelaale taliyay lagu noqda oo daalim oo jaa'ira ma waaye anigu noqon maayo ballan baan idinka qaaday maalintaan idin wadi kari waayaan idin hogaamin kari waayo waa idinka tegaya laakiin ul idinku ururin maayo idin karbaashi maayo waa idin hawl yar tahay sida laydin karbaashi way hawl yar tahay sida laydin edbista way hawl yar tahay sida hoggaan idinku xidhaa way hawl yar tahay sida taasoo kale aad u sameeyaan in madaxda barito aad iyo aad bay hawl yartay taasoo kale in barito nin madaxo idinku amarka taaglaynaya sameeyo waxa maanta marka fakirka maanta idiinagi wuxuu yahay sidee baa maxay ku dhacday maxaanay kula dhicdibna ugu dhacday maxay shalay ku dhacday maxaanay dib shal mar dambe ugu dhici karin taa weysa la isweydiinay waana jawaabtu mid qura
mid qura wey shalayto ayaa halka laydo aniga boqolkiiba 75 baa raggii boodka bixinayay meesha markaynu ka soo baxnay baa rag yidhi waraabahaan iska ilaalin waraabahaas aan iska ilaalin warma waraabaha markii dooranayay 75 miyaan saxay maxaan ku akhriyay maxay ahaayeen maanta kala kii shalay la dooranayay intaas isu raacday dooratay iyo waraabaha maanta la leeyahay laydinka celiyo muxuu galay waxa weeye dantiini bayay idinka markaa lay dooranayay dan layguma doono ee calaf ilaahay ii qoraybe maanta marka maxay aynu wada joognaa weli ilaa aad dantiina garata oo wixii dantiina ku jirto meesha wadadaas weeye dantay wixii marayaan wixii sunna shaydaan ha noqdo jin ha noqdo jaan ha noqdo middow ha noqdo middeer ha noqdo waxa wadadaas dantaydu wixii marayaan wax naga dhaxeeya taa markay ilaahay ku ilhaamiyaa garataa weligeed dib u dhaco weligeed dib u dhaco dadan raa saxabka maxaa la ii saaraa reebel maxaa loo qabanayaa aniga maxaa la ii siinayaa hadda inta arrinkeenu ka iyo dawladnimadeenu ku dhisan tahay dadamo ama mid qabiil mid beeleed mid qof mid qawiis marka intay ku dhisan tahay taasina muddadaasi kadib marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu guntiga u xidhay sidii hubka looga dhigi lahaa beelaha Soomaaliland looguna diyaar garoobi lahaa dawlad mas'uul ka noqota shacabkeeda iyo sidii loo taabagelin lahaa dawlad fulisa adeegyada ay u baahan yihiin shacabka Soomaaliland waxaana waqtigaasi madaxweynihii hore ee Soomaaliland magacaabay wasiiradii ka howlgali lahaa xukuumaddiisa iyadoo taasina ay barbar socotay tabasho hoose oo ay qabeen beelaha qaar taasoo ay kala yimaadeen shirkii lagu qabtay magaalada Boorama waxaanay tabashadaasi sababtay in sanadkii 1994 uu dagaal sokeeye ka dhaca Soomaaliland waxaana hakad galay dhismaha qaranka iyo inay dawladdu fuliso qodobadii heshiiskaasi lagu gaadhay magaalada Boorama taasoo ay ka mid ahaayeen in muddo 2 sannadood ah lagu soo diyaariyo doorasho laguna buuxiyo dhammaan shuruudaha dawladnimo waxaana sanadkii 1996 dalka la keenay lacagtii ugu horeysay ee Soomaaliland yeelato oo lagu bedelay lacagtii Soomaaliya waxaana muddadaasi kadib suuragal noqon weyday inuu heshiiskaasi fulay isla markaana intii laga gaadhayay 1997 lagu jiray xalinta dagaalkaasi sokeeye iyo sidii loo shaafin lahaa tabashada beelahaasi isla sanadkaasi 1997 ayaa xukuumaddii marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo waqtigaasi ku jirtay muddo dhaaf kadib la isugu yimid shir kaasi oo dib loogu doortay inuu marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal uu mar kale noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halka daahir riyaalo kahayna loo doortay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland alxamdulillahi rabbil caalamiin waxay dhaqaajiyay halka baabuurkii laga dhaafay waxaa ku jirtay baabuur loola jiray saaratu habeenka kuma seexanaya salaadaan halka u soo mari doonta habeenka kuma seexan waxaan leeyahay war ilaahay wuu lagaa weeye iyaduna maanta iyo kuwa wadaana maanta ay sharaf ku leeyihiin innaguna nin weyn ayay inoo tahay inaynu maanta innaguna kala adkaamino walaalo inaynu suuradeedii dhexaad kulligeed innagoo isbeer xaadatay oo walaalaa oo aan iyo carab iyo ciidinna isu qabin inaynu maanta halkan u wada fadlasiyaynayno waxayna tahay in weyn bay inoo tahay dadka in yar bay ka suura gashaa qaramaha in yar bay ka suura gashaa kuwa xabadda isla dhacaya waxay kala haystaan ma jiro wixii la kala gaadhay wax ka yar baa kala gaadhay caqli iyo cilmi iyo aqoon ay ku yidhaahaan war maxaynu isku dilaynaa aynu kala haysanaa intaynu jirin ayuubaa ilaahay ku ilhaami waaye mooyaane waxdu kala maqan yihiin waxaan leeyahay markaa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta galnay ahli cusub oo u baahan inaynu ku wanaagno oo shaydaanka goorgooriyo xumaantee sidii ay ficilkii horeba ugu dadaali jiray ee ugu firfircoonay mid maanta inooga baahan inaynu